shanta daawo ugu fiican adduunkan aynu ku noolnahay. daawooyinka ugu fiicani ma ahan kuwa ka fog bini'aadamka, balse waxay ka raadiyaan meel ka fogiya. waxaan muuqaalkani kuugu sheegi doonaa ugu yaraan shanta daawo ee ugu fiican adduunka. shantan daawo oo kaa caawin doona inaad caafimaad taama iyo hurdo taama hesho. haddaba mar kastoo aad caafimaad qabto daawade, waa mar kastoo aad noloshaadu sii dheeraato, cimrigaaguna uu dheeraado. ma doonaysaa inaysan da'du hore kuugu soo bixin ama inaad u caddaato sidii yaraantaadii? fadlan muuqaalkan daawo waa kaagii, kuna raaxayso. daawada koowaad ee idiin wadno, maadaama aynu nahay dad muslima isla markaasina ku kalsoon ilaahay abuurtay, waxaannu ku bilaabaynaa qur'aanka kariimka ilaahay soo dejiyey. maadaama ilaahay uu sheegay in qur'aanka kariimkii uu yahay dawada koowaad ee koonkan aynu ku noolnahay, waxaannu kaalinta koowaad gelinaynaa qur'aanka kariimka oo laysa saaraa isla markaasina laysku akhriyaa. wuxuu kaa dawaynayaa dhammaanba cudurrada jidhkaaga ku jira, maadaama uu ka yimid ilaahay xanuunkaa ku haya keenay. daawada koowaad waa qur'aanka kariimka oo ka yimi allihiinna abuurtay. qur'aankoo lagugu akhriyaa waxay keenaysaa in dhammaanba cudurrada jidhkaaga ku jira ay ka baxaan, isla markaasina uu jidhkaagu xoroobo. sidoo kale waa inaad istikfaarta iyo alla ka cabsiga badisaa si aad u hesho caafimaad taama oo kaaga yimaaday allihii ku abuuray, isla markaasina xanuunka kuu keenay. faa'iidada labaad ee caafimaad, jimicsigu waa qayb ka mida nolosheenna. dadka Soomaaliduna sida daraasad la qaaday ay sheegayso, wax jimicsiya ma sameeyaan, shaqo badanna ma qabtaan, oo 70% waa dhallinyaro, balse wax shaqaa ma hayaan. taa beddelkeeda wax jimicsiya ma sameeyaan. haddaba jimicsigu waa qayb ka mida nolosha. haddii uu qofku jimicsan waayana, wuxuu ku dambeeyaa cimri degdeg iyo xanuunno fara badan. oo haddii aad jimicsato, waxa kaa tegaya xanuunno fara badan oo jidhkaaga ku jiray. sidoo kale jimicsigu wuxuu u fiican yahay dhammaanba laalaabatooyinka iyo halka ay iskaga yimaadaan lafuhu oo loo yaqaano joints. oo meel kastoo ay lafuhu iskugu yimaadaan waxaa ku jira dhareer, isla markaasina saacida inay lafuhu si dhib yar u laalaabtaan, maadaama ay lafuhu samaynayaan marka ay laabanayaan friction ama islis. wuxuu ka saacidayaa dhareerkaasi inaysan waxba isyeelin oo ay u laabtaan sidii alla ugu talagalay. haddaba mar kastoo aad jimicsato, waxaa badanaya dhareerkaas ka imanaya jidhka, isla markaasina saacidaya inay jilbahaaga ama laalaabatooyinka gacmuhu ay si fiican u laalaabmaan, iyagoo aan waxba isyeelahayn ama aan samaynahayn wax frictiona ama islisa oo jidhkaaga wax soo gaadhsiinaya, isla markaasina caafimaad darro sababaya. faa'iidada saddexaad ee caafimaad ee aan kuu hayaa waxay tahay inaad biyo fara badan cabto, maadaama ay biyaha fara badani ka qayb qaadanayaan qashinsaarka ay keliyuhu sameeyaan saacad waliba iyo minit waliba oo aad adigu ku jirto, isla markaasina aad nooshahay oo kelidaadu ay si fiican u shaqaynayso. waxay u baahan tahay biyo fara badan si ay u sifayso kaadida, isla markaasina wixii wastiya ay dibadda ugu soo saarto, wixii faa'iida ku jirtana ay adiga dib kuugu celiso. kelidu dawada keliya ay leedahay waa biyaha, oo ay ku sii shaqayn karto sannado badan. si ay kugu shaqaysana, waa inaad biyo badan cabtaa oo aad ilaalisaa caafimaadka keliyahaaga. faa'iidada caafimaad ee afraad, haddii aad seexato hurdo kugu filan, isla markaasina aad si fiican uga bogato habeenkaaga, waxaad helaysaa caafimaad kugu filan oo aad ka bogan doonto inta noloshaada ka dhiman. haddaba waxaan kugula talin lahaa in marka aad habeenkii hurdo dareento, aad isla markaaba hore ka seexato si uu caafimaadkaaga iyo jidhkaaguba si fiican ugu koro. haddaba haddii aad habeenno badan soo jeedo, ogow
taasi waa qayb ka go'an caafimaadkaaga berrito aad ku socon lahayd islamarkaasina aad ku noolaan lahayd. Ka fikir. faa'iidada ugu dambaysa aan halkan idinku soo gudbinayno waxay ku saabsan tahay islamarkaasina ay gaar u tahay haweenka. naaska oo aad ilmaha ugu dadaashay islamarkaasina aad marar badan siisaa waxay kaa saacidaysaa in jidhkaagu firfircoonaado islamarkaasina maskaxdaaduna ay si fiican u furfuranto. sidoo kale ilmaha waxay ka caawinaysaa inuu hadhowto noqdo mid maskax badan oo wax kasta si dhib yar ku fahma. adigana waa hooyadee way ku caawinaysaa. fadlan daawade, haddii aad ka heshay kanaalkani warbixinnada iyo macluumaadyada aan halkani ku soo gudbino, waxaannu kaa codsanaynaa si aad ula socoto kuwa dambe aan soo gelin doonno inaad sabskraib noo saarto, kanaalka like na saarto.